bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada janalka xaqiiqsan media qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Khayre oo la ogaaday inuu xildhibaano isaga u gaar ah uu ku diyaarsaday baarlamaanka Soomaaliya haddaba muxuu yahay damaciisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo magaalada Muqdisho ka bilaabay arin walaac ku abuurtay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo wada qorshe halis ku ah al-shabaab iyo daacishta Soomaaliya qorshe la doonaya in isbedel siyaasadeed lagu geliyo dalka oo ka bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo dowladda federaalka oo xeelad cusub ciyaaraysa akhbaraadka caalamkana daawadayaal waxa ugu doorka roon 10 qof oo lagu dilay iska horimaad ka dhacay dalkaasi Yemen intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan ayna ku bilownay ra'iisul wasaare Khayre ayaa la ogaaday inuu xildhibaano isaga u gaar ah oo ku diyaarsaday baarlamaanka Soomaaliya haddaba muxuu yahay damaciisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu eedeeyay in xildhibaano badan uu ku diyaarsaday xarunta baarlamaanka Soomaaliya si dhaliilihiisu ay uga hortagaan xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qorshahaasi uu wado ra'iisul wasaare Khayre isla markaana uu doonayo inuu ku wiiqo awoodda xildhibaanada mucaarsan xukuumaddiisa waxa uu sheegay in xukuumadda Xasan Cali Khayre ay ku fashilantay dhinacyada ammaanka iyo dhaqaalaha isla markaana labadii sano aynu soo dhaafnay ummadda been ay ku soo hogaaminaysay xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay afduubatay baarlamaanka isla markaana 57% xildhibaanada ay ka tirsan yihiin golaha wasiirada sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala jira xisbiyada ka dhisan dalka kuwaasoo mararka qaar ku mashquula howlaha xisbiyada u gaarka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay arin walaac ku abuurtay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka Midowga Afrika ahna madaxa ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM Ambassador Francisco Madera madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay doorka nabad ilaalineed ee ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale qaabilay qunsulka dalka Masar u jooga Soomaaliya Tamer Safwad oo booqasho sharafeed ugu yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo uga mahadceliyay sida ay shacabka Soomaaliyeed u garab taagan yihiin beesha caalamka ayaa la rumaysan yahay inay Shariif u aragto madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee xagga amniga dalka iyo Muqdisho wax ka qabtay isagoo deegaano badan ka xoreeyay al-shabaab Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa musharax u ah xisbiga himilo qaran kaas oo la filayo inuu gudoomiye looga dhigo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Sheekh Shariif oo labadii doorasho ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday musharax ahaa ayaa haddana rajeynaya inuu mar kale ama markii saddexaad uu isku soo taago xilkaasi dhanka kalena dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa wada qorshe halis ku ah al-shabaab iyo waliba daacishta Soomaaliya wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhigga dalka Masar oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay taliska ciidanka xoogga dalka kadib markii uu xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ee dhanka ciidamada iyo sidii iskaashi buuxa looga sameyn lahaa in dowladda Masar ay ka qayb qaadato tababaridda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Daahir Aadan Cilmi ayaa ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabihii la isku afgartay waxaana uga mahadceliyay dowladda Masar kaalinta ay ka qaadanayso tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wafdiga uu hogaaminayo sareeya gaas Waxiid Cizaad Ibraahim ayaa waxay imaanshahooda Muqdisho ku soo beegmaysaa xilli dhowaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadleen sidii dowladda Masar ay ugu tababari lahayd ciidamada Soomaaliya qorshe la doonaya in isbedel siyaasadeed lagu geliyo dalka ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyana ay ciyaarayso xeelad cusub magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa ka socda maalmihii ugu dambeeyay kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeeday dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay wadeen madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta qaar saacadihii ugu dambeeyay magaalada Nairobi waxaa ka dhacay kulamo u dhaxeeya siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray madaxda maamul goboleedyada iyo beesha caalamka
qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan nidaamka federaalka oo beesha caalamka ay ku bixisay dhaqaale badan inuu dalka ka hirgalo. madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Puntland iyo Jubbaland ayaa Nairobi ku qabtay kulamadii ugu ballaarnaa ayay la qaataan xubnaha taageera Soomaaliya, waxaana qaarkood ay sheegeen in dhaqaalaha loogu talagalay Soomaaliya uusan soo gaarin bilooyinkii ugu dambeeyay. cadaadis ballaaran ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kala kulmaysaa kulamada ka socda Nairobi xilli ay horey siyaasiyiin ku shiray magaaladaasi ay u sheegeen in dowladda Soomaaliya ee hadda jirta ay ku fashilantay sugitaanka amniga dalka. ugu dambeyntiina 10 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay iskahorimaad ka dhacay dalka Yemen. milatariga dowladda Yemen ay qaramada midooba aqoonsan tahay in maleeshiyada Xuutiyiinta ay dowladda Iiraan taageerto ayaa la sheegay in dagaal uu ku dhex maray gobolka Tacis ee galbeedka dalkaasi. sargaal ka tirsan hay'adaha ammaanka ee dowladda dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegay in dagaalkaasi shalay uu ka dhacay gobolka Tacis isla markaana lagu dilay 10 qof laguna dhaawacay 10 kale. labada dhinac ayaa waxaa la sheegay inay hub culus isku weedaarsadeen caasimadda gobolkaasi ee Tacis lagu magacaabo. qoysas badan ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda ku yaala meel ku dhow goobihii lagu dagaalamay. bartamaha magaalada Tacis waxaa haatan gacanta ku haya ciidanka dowladda, halka duleedka magaaladaasi iyo deegaanada ku hareeraysan ay weli ku xoogan yihiin maleeshiyada Xuutiyiinta oo iyagu haysta inta badan gobolada waqooyi dalkaasi oo ay ku jirta caasimada dalkaasi ee Sanca. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen janalka Xaqiiqsan Media waa naga intaas.